بسم الله الرحمن الرحيم. عبد المالك الشيخ موسى علدون أدي بنكو سلاميا. أرنتي أدي سوي ديسي كو سابسناي تاريخ الدراويش تا يعني هل كان وحي أنكرو أما وقت يقسمو أنكو دوبيا هدي الله يدمو. تاريخ الدراويش وحي سعوتي مدة دولية 20 سنة هي تاريخ سيد كوبا. marka waqti kooban in lagu sheega aad iyo aad ayay u adag tahay laakiin waxaan isku dayayaa meelaha ugu waaweyn in aan xuso horta sayidka waxa la yiraahdaa ama lagu naanaysaa aabaha wadaniyada casriga ee Soomaaliyeed mar sidaas la yiraahdaa marna waxa la yiraahdaa aabaha maansada Soomaalida labadaba anigu ma orana mana bixina waxa bixiyay nimankii Ingiriiska ahaa khaasatan la dagaalamay ama ay dagaalameen wixii ay ka qoreen markii uu geeriyooday kadib annana waa u rumaynaynaayo waa runtood labadaba waayahay sayidku halgankiisu wuxuu bilowday ama sharaaradii ugu horeysay waxay ka soo baxday 1800 iyo hadii alla ku rooyaa 95kii ama 96kii markii inta Maka uu ka soo noqday uu Berbera ka soo degay laba dhacdo ayaa halkaa ka dhacday dhacdada koowaad waxay ahayd xeebta iyo dekada Berbera oo ninkii Ingiriisiga joogay ama askartiisii ay sayidka weydiiyeen inuu cashuur bixiyo alaabtii uu watay oo xajka kala yimid markaasna uu yaabay oo yiri adiga waxaad ku tiraahdaa ninka Ingiriis yaa adiga cashuur ka qaaday markaas soo degtay arrintaas dhacday ayay ahayd dhacdada kale waxay ahayd markii uu la hadlay caruur ka timid college oo niman Catholic ay lahaayeen Belgium oo ay ku lahaayeen dhaymoole meel yaado Berbera u dhow wiil ka mid ah wiilashii ka soo baxay meesha ayuu weydiiyo wuxuu yiri magacaabu yiri markaasuu yiri waxa la yiraahdaa John Abdullahi markaasuu hadii la qoraya oo yaa tahay markaasuu reer fatherku waa aabaha waa wadaadka waa ninka ugu sareeya kaniisada labada dhacdo ayaa loo tiriyaa oo la yiraahdaa labada dhacdo ayaa wadaadka ku dhaliyay in uu sameeyo wax aan dadka kala samayn sidaas isaga hor yimaadeen nimankii gumaysiga ah ee Berbera joogay haddana waxay iska hor yimaadeen wadaadadii isla Berbera joogay oo qaadiriyada u badnaa sina saalixiyo ahaa markaasuu yimid oo isagaaba waday ijaasada saalixiyadu watay Sheekh Maxamed Saalix uu ka watay nimanka wadaadada waxay isku qabteen dhowr arrimood oo magaalada horta magaalo iska ladan bay ahayd oo markaa ganacsi fiican baa iyo doonyaha Hindiga ay maan jireen hargaha laga dhoofin jiray aad bay u landaayeen dadka reer Berbera marka wax rabasha iyo diyaar uma ahayn wadaadadii wuxuu yiri hadii la ku rooyaa in gaalada lala joogo oo ay wadanka idinku xukunto waa xaraan ma banaana wuxuu kale xaraan ka dhigay qaadka iyo hadii la ku rooyaa tawaakada waa xaraan buu yiri waa la isku soo gobol fariistay oo waa la munaadarooday oo adigu arrimo waaweyn baa ka dhacay halkaa حتى الشيخ يسمع كتير أما ولاد في قرآن كأي بريه ده علماء قار بابراء أورنتي الشيخ عبد الله عروس يا كتير يا شيخ مدري